warramayay telefishinka caalamiga ah Home Cable ayaa sheegay in hay'adaha samafalka aan looga baahnayn inay ku sugnaadaan wadanka Kenya ee loo baahan yahay inay yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. هذا الشرط على مدام المال الجوي مكان لا ترى وحاط وعدنا إن وتبكي متحديات سوق جلو المغالي تبينهم إن قناع الخسارة إن هذا لوجون دي أم أقعد الصومالي إن صحيح إن اليوم جوان العكس الخوطة جاي وتبي يسلو مسيرك بقولك كذا تبص عليها حتى لو كان وش يدونا إن أي وتبي يسمعها هذه وتبي يسمعها ويا الكنيسة بس ما يسمعها اليوم شغال أولية جايز ولا يا الكنيسة دونا مركوش دونا يعني إلى هكذا ماذا قرش كوت كنا يكون بحيان أمروز شغال صار بالنسبة Ambassador Maxamed Cali America ayaa sidoo kale ku tilmaamay dawladda Kenya dawlad soo dhaweysay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinku ay hareeyeen isagoona intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed aan la dhibaatay karin laakiin mararka qaarkood iyagu ay laaluushi bixiyaan anaga shaqaad ahaan waxyaabay ugu horeeyay aqoon waxay inaan marka hore dadka wacyigelin siino inaan dawladda Kenya kala hadalno in dadka Soomaaliyeed ay koorin ay ku sameeyaan wax ilaa profile ku sameeyaan دولة كده درع وطن مهبلاوي ويحق ولا هاي إن ذات كذا ذات كوطن كإمارة يعني جوا وأدنى لا شيء وجش لكن سوالف ما هذا إن دومينتي يقول كجوهر مسؤول هذا مساعدة كله إلى وقت وطن إن هذه أي وصعي ولا القطع وحامش شغلة إن العقيم الرسول الدين أي شيء كذا كتير كذا هو اعتبار ده مرة بدأ يعني وأنا من الناس اللي بيني وأنا بدعمني لكن دي قصته لو يشبه هو يفكر سيقول معنا الدنيا وأدنى هو يلوش هو يسمع معها الدول كين وأكرهها ضلي طبعا وديعت في هذا لا وحسميها لكن وأدنى هو لما نقول الدول كين وعند كرفس أي أقولتي والجديها لكن وحملت سكوي عندنا وهذا كيف يصير تيجي راهم كبر إن ذا السؤال إذا كينيا إن شيء وضع مركز يود عليها أيوة dhinaca kale Ambassador Maxamed Cali America ayaa tilmaamay in aqalkii safaaradda Soomaaliya haatan la doonayo in dayactir lagu sameeyo taasoo uu tilmaamay in uu dayactirayo ninkii hunuuda ahaa ganacsadaha isagoo laga soo celiyay kadib markii uu si sharci darro u iibsaday isagoona tilmaamay in haatan dacwadaasi ay meel aad u wanaagsan marayso December toddobaadii 2020 waxay maalin taariikh ah guushaas aanay krimili shaqaalaha safaaradda iyo Soomaalida ka degan Kenya ayaa guusha iskale iyo Soomaalida next jooganba anaga waxaan aaminsanahay inay ahayd guul taariikh ah taariikh sheegtay gurigii anaga waa inta dhacay waa ficili Home Cable waxay kamid ahayd mataqaana dadkii maalintii laga qaybgalay guushaas nala joogay calankeena ka taagan hadda meesha maadaama gurigii 6 sano aan deganeen markaan tagnay oo calanka taagnay waxaan aragnay in gurigii la baladaystay oo deeshadii albaabada ka maqayeen markaan aad loo jibiyay oo alday kaleba kadib ayaan waxaan sameeyay dacwad kale ayaan ku furnay ninkii guriga qaad ku iibsaday dacwadaas oo aan leenahay maadaama asaga uu ka dambeeyay markaan guriga saas inuu noqdo in uu bixiyo ama markaan ismaha guriga u dhiso sidoo ahaa ku soo celiyo dacwada loo socotaa laakiin dowladda gargaarka ah iyo ganacsiyo fara badan ayaa ayagana badan qaaday inay sameyn doonaan waxaana in la sameeyo dabcan anigu weli ma deganin waxaan jeenahay insha Allah taala in bilaa soo socda bilaa ismi kadibna aan u guunaado magaalada Muqdisho